xanuunka fiidmeerta ama koboligu waa bambo jeermis ama caabuq ah oo baala leh. riwaayadii ama masraxiyadii Daarakula oo la dhigay sanadkii 1897 fiidmeertu waxa ay ka ahayd dilaaja qadhiiga dadka. koboligu waxa uu geesi badbaadiye iyo xayawaan garabdaar leh ama wax sheeg ah ka ahaa sheekadii khiyaaliga ahayd ee Batman. kibiliga ama fiidmeertu makaydka jeermiska oo baala lehba kaas oo xambaarsan geeri iyo cudur mise waa geesiga deegaanka muran la'aan. waxa aan ka bilaabaynaa Shiinaha. halkaasi waa meesha uu ka dilaacay coronavirus. Shiinaha marka la joogo fiidmeertu ama kabiligu waxa uu leeyahay darajo sare iyo kaalin la majeersado. waa astaanta liibaanta iyo isha ay ka soo burqadaan shanta baraare ama barwaaqo. guri walba oo Shiinaha ku yaalana waxaa laga helaa taaladan fiidmeertu ku xardhan tahay 5 koboli oo isu eg ama 5 fiidmeer oo isu eg iskuna dhegan, kuwaas oo ay aaminsan yihiin inay soo jiidaan barwaaqada, caafimaadka, cimri dheerida, wanaagga iyo niyad samaanta. xitaa ereyga kibili ama fiidmeer afka Shiinaha waxa uu ku yahay beenfu. waxa uu aad ugu dhow yahay ereyga liibaanta ama baraaraha oo afka Shiinaha ku ah isaguna senfu. dadka Shiinuhu ma aqbalayaan mana yeelayaan marnaba eedaha iyo xumaanta loo tiiriyo fiidmeerta ama kibiliga, iyada oo weliba sumcadda fiidmeertu aad u xun tahay laguna yaqaan sooyaalkiisa farsamaynta jeermisyada sababa cudurrada faafa. sidoo kale waa isha ay ka soo burqato balaayada shanta ah ee fayrasyada SARS, Ebola, Nebah, sucaar iyo coronavirus. dhammaan waa cudurro safmar ah oo faafa, kuwaas oo qaaradaha caalamku wadaageen iyaga oo faafiyey meyd iyo jirro. balse aan isweydiinno, waa maxay sababta fayrasyadu u doortaan fiidmeerta oo aanay u dooran xayawaanada kale? nasiib darrada bini'aadamka, fiidmeertu waa sida aadanaha, waxa ayna ka mid tahay naaslayda. koboligu waxa uu ka dhigan yahay 5 meelood meel naaslayda adduunka ku nool oo dhan. jirka koboliga ama fiidmeertu waa deegaan ku habboon oo xanaaneeya fayraska, kuna caawiya fayraska inuu iskiis isu hormariyo. kadibna waxa uu u gudbayaa fayrasku jirka bini'aadamka isaga oo ku gaashaaman awood aan ka dhicin tan difaaca jirka dadka, isla markaana tababar adag ku soo qaatay gudaha jirka fiidmeerta. balse hadda koboligu waxa uu la duulayaa fayraskiisa isaga oo aan cidna ka hibaysanayn. shaqada ugxaantiisu waxa ay ku ballaarataa duulimaadkiisa. duulimaadku waxa uu u suuro geliyaa fiidmeerta inay ka adkaato kana takhallusto saamaynta jirrooyinka ku dhaca dhammaantood. balse sug u kaadi, maxaa dhacaya haddii bini'aadamku laayo ama gumaado dhammaan fiidmeerta ama kibiliga? dhibaatada xal ma loo helayaa? cilmi baarista la sameeyey waxa ay muujinaysaa in Maraykanka oo keli ah uu bixin doono $22 bilyan sanadkii si uu u maareeyo saamaynta ka dhalan doonta marka xayawaanka fiidmeerta la laayo. sababta waa inay soo bixi doonaan oo ay heli doonaan fursad ay ku dhaqdhaqaaqaan 1,300 oo tan oo cayayaan ah, kuwaas oo ku filan inay soo raraan ama soo guuriyaan cudurro 100 goor ku jibaarma kuwa fiidmeerta. intaas waxa sii dheer saameyntooda xun ee wax burburisa ee dalagga iyo beeraha oo badankoodu dhiman doona haddii ay waayaan adeegga tallaalka ee fiidmeertu siiso. 64 milyan oo sano ayaa lagu qiyaasay cumriga fiidmeertu ku nooshahay adduunka, waana 1,300 oo nuuc oo isugu jira kuwo dhegala, kuwo indhala iyo kuwo dhiigga jaqa ama nuuga. fiidmeerta ama koboligu waddan waxa uu ka yahay maraq ama goosaar wanaagsan oo wax lagu cuno, waddan kalena cudur faafa oo halis ah. fiidmeerta ama koboligu waa mid lagu wareero marka la eego sida uu u samaysan yahay una dhisan yahay, si la mid ah sida uu u wareeriye adduunka. haddaba fiidmeertu ama koboligu ma bambo fayras ah oo hawada sare heehaabaysa, mise waa derbi adag oo ilaaliya deegaanka kana hortaga cudurrada faafa ee halista ah?